بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada arday kusoo dhawaada casharkeeni koowaad waynu ka bilaabi doonaa barashada computerka oo sin hore u balan qaaday insha Allah taala waxaanu bilaabi doonaa maanta Microsoft Office ka ugu horeeya insha Allah taala ama Office ka ugu horeeya oo noqon doona insha Allah Microsoft Office Word oo isagu 2010 computerka aan isticmaalayno waxa weeye waa HP marka Core i3 marka Word ka insha Allah taala markaan asharada bilaabano waxa laga waxyaabo badan in ku yar kala duwanaano marka hadii word ugu jira uu sameeyay yahay horta waa ka ugu fiican oo inta badan dadka oo dhan qofka beginnerka uu garan kara marka aniga laakiin wordka ugu jira waa 2010 weeyaan isaga laftiis waxba kama duwana marka fiishanadu aad u yar kala duwan laga yaabo waxyaabo badan in ku yar kala duwan laakiin inta ugu badan waa isku wada mid waxa laga yaabo processyada aad marayso ma ku yar kala duwan mid taasaan marka imika taasaan page forayso kale mid hab dheer bad maraysan midna hab gaaban marka kulli wax badan kuma kala duwana marka insha Allah taala waan bilaabi doonaa si toosan u bilaabi doonaa wordka ugu horeyn markaan doonayno soo furno waxaan taaban doonaa insha Allah taala start ayaan dooran karnaa marka saddex hab ama dhowr hab aynu furi karnaa soo furi karnaa wordka starting time taabano ayaan halka recently added ka ay ku qoran tahay inuu eegi doono inuu halkan loogu jiro marka hadaan halka aad computerka ku oolino markii aad ku soo shubaysay aan markaa ku dhigmin marka ka halka wordka ka inoo yaala Microsoft Word 2010 marka hadaan click ma oranaya only one ama intan arrowga dulgayo uman furayaan marka imka taas uu soo furmay wordki laakiin hadii aanu halka ku oolin waxaad samayn kartaa starting ta taabato ayaad recently added taaban doontaa kadibna barnaamijka doonaysa soo kiciso ayuu magaciisa taaban doontaa xarafka dooran doontaa marka imkan doonaysa soo furaan wuxuu ka kacayaa m buu ka kacayaa marka Microsoft Office buu ka kacayaa m markaan taabano halkan wuxuu noo soo dhigi doonaa qaanadii ku jiray word marka Microsoft Office kan ku sii dhufan doonaa hoosta ayuu insha Allah marka ka dooran doonaa meelaha aan keegi doonaa qas way waka Microsoft Office Word waka kadibna click ma oran doonaa arrow in ku dul dhufanana ama inta baad taaban inta arrow dul kiiso oo saas uu soo furmay hab kala jiro soo furi karto start baan doontaa halkan ay ku qoran tahay tape meesha banaan ay ku qoran tahay tape here to research halka search ayaa taaban doontaa marka waxaad ku qori doontaa only one word ma qori doontaa kelmadda word kaliya halkaas dadana waxa ku soo dhignay kaasas ku dhufan doontaa app ay ku dul qoran tahay marka iska ilaalin kan word baa hoos yaala marka laakiin waa ka halka ka ay app ku hoos qoran tahay aad ku dhufan doontaa arrow inta dul geyso umba inta taaban doontaa oo soo furmi doona insha Allah taala marka saas ku soo furmi doona marka saas ku soo furmo waxaad samayn doontaa insha Allah taala in horta markaynu isticmaalno wordkeenan laba qaybood ban Allah isticmaal doonaa qaybta ugu muhiimsan ee isticmaalna horta waa qaybtan title bar baa la yiraahdaa qaybtana marka qaybta title barku iyadu waxay qabataa waxa weeye oo ay ka warantaa wax kala yib kama waranto waxa kaliya inooga warmaysa waxa weeye waa qaybta sare ama qaybta sare ee computerka ay ku qoran tahay magacyada barnaamijyada marka magacyada barnaamijka aan soo keenay marka tusaale barnaamijka aan soo keenay waa Word marka magacyadiisa qaybtana waa ku qoran waxa ku qoran ka file home insert page layout references mailings review view intaas oo meelaha ay magacyadaas ku qoran yihiin ayaa loo yaqaan title bar marka title bar waa qaybta ay ku qoran tahay magacyada barnaamijyada marka qaybtan hoosena waxa la yiraahdaa imka halkan barnaamijyada inoo yaalaan iyaga waxa la yiraahdaa task bar baa la yiraahdaa marka task bar isagu waxa weeye barnaamijka aad soo furto kalba barnaamijka aad soo furto ayuu ku tusaya oo xaga ku soo dhigaya imka war barnaamijka furna waa ka Word waa halkaas inoo yaala kaas uu ina tusay barnaamijyada waad soo dhigan kartaa marka task barka xaga soo dhigan kartaa marka insha Allah taala waxaan si toos u bilaabi doonaa marka qaybaha ay ku isticmaali doonaa Wordka marka halkan keyboard baa la yiraahdaa qaybta hore keyboard baa la yiraahdaa waxay noo qaabilsan tahay qayb markay doonno inaan qoraal aynu copy karayno ama paste karayno ama qoraalkii hore mid la mid ah aynu soo celino marka halka copy ay leedahay marka waxaan isticmaalaa sidoo kale cut baa iyaduna ku jirto qoraal baan saaran qornay qoraalkii doonay inaan jarno marka qoraal saaran noqotay oo kelmad yar oo kooban oo aad tiri saaran maxamed waa nabi geena salaam qoraal hoos okay qoraal ka yaran qornay saaran imkaan aan ku soo celiyo qoraalkeen qornay maxamed waa nabi geena sallallahu alayhi wasallam okay marka qoraalka waan koobiye imka waan highlight man saaray marka control plus ee wataan sina u isticmaal doonaysan qoraalkaas aan doonaya marka waan ka takarin karaa qoraalka waan ka takaray marka waan soo celin karaa markaan soo celiyo marka qoraalka imkaan qoraalka ka ku qoran ayaan hadana imka waan waxaan samayn karaa koobi baan ku samayn karaa marka koobi baan taabanaya hoos man gudagaya kadibna paste uma noqonaya kaas waan koobi karay marka clipboard waxay noo qabanaysaa marna waxbaan ku koobiyeenna marna iska cut karaynaa
qaybtan waxa la yiraahdaa font waa la yiraahdaa qaybta inagu xigta waa qaybta halkan ku jirta marka font waxa weeye bimaana farta aynu qoraynin qoraal ku qornay ayaynu wax ka bedelanaa mar waxaan bedelanaa midabkeeda oo inta nusaha highlight ka saarno ayaynu midabkeeda halkan ka bedelanaa waxaan taaban doonaa font color baa la yiraahdaa qaybta reerka eed ku qoran tahay marka halkaas midabkeeda ka bedelaysa xagan iyaduna xagan fartigeeda ka bedelaysa farta nooc ay noqonayso xagga waxaad doodan doontaa iyadana sidoo kale halkan iyaduna wax ka bedela size-ka fartu leedahay calaamada marka tirada kugu qoran tahay waad isticmaali kartaa labada eeya kala yaryarna midna boolka midna waxa weeye ay weyn tahay midna yar tahay waad isticmaali kartaa oo mid waxa weeye waa iyadu waa increase taa weyn waxa weeye waxay ka warmaysaa waa fartaadii ayaad aad u sii kordhinaysaa haddaad sii waaweynayso waad taaban kartaa haddii kale fartaad yaryaraynasana taas eeda yar baad taaban doonta way sii yaryaraanaysa fartaadi meel ka dambaysa حاجة ترد كقرن ترد لفت ودون كرتا فرت هذا دون ترى عيمن تركته يمكن تسترى عيمن معها ولكن هل كان لكن كوسو قرميسة لا ترد كقرن يمكن ترى فرت هذا ولا وتاس لبي لا تنبيه صوت هذا هل كان لبركة دون سكتون كرتا لبي توم تكون كرتا من فرت هذا دون كرتا مركا برامج قيبتي سكلا حتى هوسي فونتيكا بيداس waxay taagan tahay fartaadi oo doonaysa inaad bool ka dhigto oo khadka ku yarbadiso marka khadka dad doonaysa ku badiso biiba doon doonta inta highlight ka saarto aydaas waxay taagan tahay fartaadi chief ka dhigi doonta fartaadi chief ka dhigi doonta saasoo chiefin doonta si aad yar aragtaan aan yar waaweynayo si isbedel ka aragtaan balay marka khadkaygu waa caadi fartaadi way taagan tahay chief aan ka dhigi soo markasan yudan waxay taagan tahay iyadu khad line baad hoosta ka dhigaysa khad iyo fartaadi ama qoraalkaaga baad ay line hoosta ka dhigaysa marka underlining way ayaa la rabaa marka taasna waa bool bay taagan tahay oo marka iyada soo qaabka soo gaabinaysa insha Allah taala waan ku soo 10 kadib ku qaadan doonaa aydan iyadu waxay taagan tahay waa chief farta chiefin doonta iyadu waxay taagan tahay underlining oo line bal host ka marin doonta ab halka yar ku qoran tahay iyadu waxa weeye line ka imka caadiga qoraalka aynu qornay ayaynu doonaa in line sa dhexda uga marino hadii ma hofiyasta line ba sa dhexda uga maray soo markasan line ba dhexda ka maray marka ega style calaamada توغ هوس فر يالو iyaga sta tuugu dul yaalo waxa la isticmaalaa xisaabta kale ama chemistry kale marka isticmaalo carbon indonium kana ama oxygen man salaan doonayna qoro oxygen waa o iyo tu soma tu hadan qoro tuugu way ka weynaan sa oxygen marka sayna weynaanin o dintan qoro ay waxaan taabanayaa hada egasta ay tuugu hoosta ka marsan tahay hadan tusha saaro way xaga sare marsan marka oxygen inta badan tuugu ka hooseeya marka egasta markan taabto كدي واحد تابنيا تو ما تابنيا مكو هو سيمي ما دركسا لكن هذا انت سكدا أما تو تابتو وما هي بسلك هنيا فرت دميرين مركا وما هي دي هذا مركا كاروت سالكوري مركا لا بس اسمه كسمود معها مركا تنوع أكسجين تنادي وحوي وزيرو وتو عادية أما زيرو تو مركا قيتم فونتيكا تصم كاستعمال واحد كلا جرتها كان واحد جرا qoraalka galaftiisa ayaad wax u bedelaysaa effects box man ka fartan noocan ay tahay waxa weey waa khad caadi oo dhameystiran laakiin mid khafiif ama kala raysan ayaad ka dhigi doontaa marka waxaad isticmaalaa waxa la yiraahdaa halkaas text effect baa la yiraahdaa marka fartaada ka bedelaysaa wax waxaas qaabkaas noqon kartaa kulba nooca doonayso ay nooca doonayso ayaad ka dhigi kartaa fartaada oo aad ka dhigi kartaa oo u bedeli kartaa nooca doonayso ay nooca taas okay haddaad hard ku sameynayso shadow marka dooran doontaa haddaad reflection oo qoraalku soo celinayo qoraal kasi hoos sameysmayo ku socodnayso hadaad ku sameynayso glowing oo wax weeye khad hoos uu ka soo galiyo gudaha iyo uu ka soo galiyo dhinacyada hareeraha uu ka galiyo khadka oo hareeraha ka galiyo waad sameyn kartaa line bad dushka marin kartaa wax weeye line kan dushka maraya khadkaaga inaad bedeli kartaa oo iminka aad arkaysan khadkaaga soo markaysid cagaarka iminka soo markaysan dima muuqdo khadka qoraalkayga hadda aragto dhinacyadiisa waxa weeye maxay hareeraha maxay ka yarmarsan khad green ka yarmarsan marka waad bedeli kartaa halkan iyadu waa iyadu text highlighting baa la yiraahdaa iyadu highlighting ku sameeyay marka wax weeye text highlighting boqodii inta marka hore control plus ay taabato ay midabka doonayso ka dhigi kartaa kaas niman highlighting ku sameeyay midabka marka intaas aynu insha Allah taala soo koobina 10 dambe waxaan ku qaadan doonaa paragraph-ka qaybta inagu xigta paragraph-ka iyo qaybta inagu xigta stylist-ka iyo qaybta dambe oo editing-ka billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi